Assalamualaikum calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan akhyaarta qiimaha badan ee ku taxan kanaalka Mira Media. Soo dhawaada mar kale iyo barnaamij kale cusub. Barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah qisooyinka cajiibka ah ee ka dhacay dunidan. Qisadan oo markaa ay noo soo tabinayso inoo soo warinayso gabadhii ay ku dhacday waxay u dhigantahay sida tan. nagu soo biir daawade oo naga mid noqo asxaabta nagu taxan ee nagala socota barteena Facebook iyo YouTube oo kala soco muuqaalo la xiriira arrimaha taariikhiga ah, caafimaadka iyo arrimaha nolosha si khaas ah u quseeya si gaar ah u taabanaya. haddaad nagu cusub tahay fadlan page-keena Mira Media follow saar, sidoo kale YouTube channel-keena subscribe saar ee Mira Media. aad baad u mahadsantahay daawade. waxaan qorsheeyay inaan islaamka burburiyo balse waan islaamay. qisadan waxaa lagu baahiyey mareegta la yiraahdo About Islam Net. waxaana u dhacday qisadu sida tan. waxaan ka mid ahaa kuwa qorsheeyayaal ah, ilaahayna qorshihiisa ayuu wada. alle ayaa ah qorshe sameeyaha ugu wanaagsan. markaan dhalinyarada ahaa waxay soo jiitay koox dad ah oo ajandayaal qaldan wata. waxay lahaayeen welina leeyihiin ururo ay isugu tageen shakhsiyaad guuldaraystay kuwaasoo ka shaqaysan jiray magaca dowladnimo. ujeedada ay ka lahaayeen ay tahay inay burburiyeen diinta islaamka. mid ka mid a kooxda ayaa ii yimid waayo waxa uu arkayay anigoo u doodaya, dhiirigelinaya, kana shaqaynaya xuquuqda iyo quruxda haweenka. waxa uu ii sheegay haddii aan ogolaado inaan xidhiidhka caalamiga ah inaan kasoo barto bariga dhexe Middle East. waxa uu ii ballan qaaday inuu shaqo iga siin doono safaaradda Masar ee Ameerika ku taal. waxa uu iga rabay inaan halkaas tago si uu ii isticmaalo, yacni si aan ugu shaqeeyo isaga oo aan dowladaha ula hadlo haweenka muslimka ah, kuna booriyo inay xuquuqdooda u hadlaan una dagaalamaan. waxaan ka arki jiray tiifiyada, waan ogaa inay sabool yihiin. waxaan damcay inaan hogaamiyo iftiinka qarniga labaatanaad. hamigaa dartii waxaan tegay jaamacad si aan waxbarasho u bilaabo. waxaan bartay qur-aanka, xadiiska iyo taariikhda islaamka, siirada islaamka. waxaan bartay sida loo bedelo hadallada si aan u bedelo xogaha iga soo gala diinta islaamka. markii aan bartay diinta islaamka iyo dhammaan shareecada ee aan si qaldan u bedelay muddooyinkii horeo dhan aan ku jiray arrimahaas, aakhirkii muddo kadib waxaan dareemay inaan xiiso aad u badan u qabo diinta islaamka iyo shareecada islaamka, balse umaan joojin ee waxaan galay fasalo lagu barto diinta kiristaanka. haddaba intaa kadib waxaan go'aansaday inaan noqdo macalin jaamacadeed, professor, oo xilligaa karaamo aad u weyn loo hayay. waxaan islaamka ka sitay shahaadada ugu sarreysa ee PhD. gaar ahaan waxaan jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka ka dhameeyay barashada diimaha, theology. sidaan doonayay ayaan u malaynayay, balse way isbedeleen wax waliba. sababtoo ah macalinkii aniga ii dhigayay fasalka kiristaanka lagu barto waxa uu aaminsanaa xornimada inuu qof walbaaba raadsado waxa dhabta ah ee uu rabo, oo loo yaqaan Unitarian Christian. muu aaminsaneen sida ay kiristaanka kale aaminsan yihiin oo ah in Nebi Ciise yahay Allihiina abuuray, laakiin waxa uu aaminsanaa inuu Nebi Ciise yahay nebi. kadib waxaan isbaranay wiil muslim ah. wiilkaas muslimka ah markaan isbaranay, walaalkayga muslimka ahaa ayaa ii sheegay habeenada ka mid ah in tuulada aan ku noolnahay ay soo booqdaan koox culimo ah. waxaana igu codsaday inaan la kulmo salaada cishaaye ka bacdi. waan ka aqbalay waayo waxa uu ii ahaa walaal aad u wanaagsan. waxaan la kulmay 20 nin oo qol ku jira. kadib waxay ii baneeyeen meel aan fadhiisto, si wanaagsanna way ii soo dhaweeyeen. kadib waxaan la kulmay nin waayeel ah kaasoo kasoo jeeda waddanka Pakistan. runtii waxa uu ahaa qof aad u aqoon badan oo wax ka yaqaan diimaha kiristaanka iyo diinta islaamka. waxaanu galnay dood aad u dheer oo socotay ilaa salaadii subax. waxa aanu ka doonnay waxay ku kala duwan yihiin qur-aanka iyo baybalka kiristaanku. doodu way qancisay waayo waxa uu ahaa nin aad u caqli badan. haddaba 3 sano aan baaritaan waday, waa la caayayay waana la aflagaadeeyay, balse maan arag cid islaamka igu yeedha. waan fikiray waxaanan u soo dhawaaday diinta islaamka. faham badanna waan ka qaatay. waxaan xaqiiqsaday waqtigaa kadib inay tahay diintan diinta xaqa ah ee aanay jirin diin kale oo aan xaq ahayn. waxaa laga qabtay shahaadada oo English iyo Carabiba waan ku dhawaaqay. markan aan shahaatay waxaan dareemay dareen aanan weligii arag oo ah macaanka ay leedahay diinta islaamku, waayo imika waxaan haystaa fursad aan ku geli karo jannada. waxa ay bilaabantay nolol cusub oo leh farxad
farxad iyo jacayl. waxaan u tukaday sidii oo aan weligay noolaanayo nolosha adduunka. waxaanay ahayd maalmihii iigu farxadda badnaa nolosha inta noolaa, naxariistan dareemayo ee islaamka darteed. gabadhan waxay kusoo gebagabaysay maqaalkeeda, alle waxaan ka baryayaa inuu ii siyaadiyo nolosha quruxda badan een hadda ku jiro, iiguna dilo diinta islaamka. qisadan oo ahayd qiso aad iyo aad u cajiiba oo ay ka sheekeynaysay gabadhan, intaas ayay kusoo gebagabaysay qisadeeda. muuqaalkan intaas ayaan kusoo xidhaynaa. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya oo daadihinayay anigoo Ridwaan ah. intan mid lamida ku kulmino, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. is aragti dambe oo xiiso leh. nabad.